بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم habeen wanaagsan ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhair caawa wararka aan idin hayno waxa ugu waaweyn waxa xilka ra'iisul wasaaraha laga qaadayo Xamza Cabdi Aar waxaana lagu bedelayaa ninka in adeerkiisa ee hadda ah taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed General Asad Cabdullaahi Cusmaan oo loo yaqaan Diyaano warkan oo xasaasiya isla markaana hadda soo dhacay ayaa wuxuu sheegayaa in taliyaha booliiska laga dhigayo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya haddaba xogtaasi waxa ka runa goorta xil kala wareejintaasi ay dhacayso iyo soo kale Xamza halka uu qaban doono isagoo la ogyahay ama dadka qaar ba ugu yeeraan Xamza Daacad waxaan diiradda saari doonaa caawa ama mowduuceena aan ku eegi doonaa wararka la xiriira xilka qaadista ra'iisul wasaare Xamza iyo soo kale in ra'iisul wasaare cusub uu noqdo Asad Diyaano wararkeena kale ee caawa waxa ku jira ciqaab adag ayaa loo diyaariyay askarta ka soo baxa furimaha dagaal ama dhabarka u jeediya dagaalamayaasha al-shabaab ee si daacada u gali waaya dagaalka waxaa la leeyahay isaguna xabsiga ayaa la dhigayaa xitaa isagu keligii maaha qoyskiisa ayay saameyn doontaa oo waalidkii xataa waa la xilaya haddii askariga uu ka soo baxo furimaha dagaal sidee bay suuragal ku noqonaysaa muuqaalkeena ayaan caawa kugu hayaa taa beddelkeeda waxaa niyad jab ah in raashinkii loogu talagalay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee baabuurkaas aad arkaysaan saaran jidadka Muqdisho dhowr mooto lagu rarayo raashinkaas oo ay dhacayaan madax iyo saraakiil bal muuqaalkan ila daawasaadkii iyo sahaydi loogu talagalay askarta dagaalka ku jirta oo Muqdisho lagu dhacayo waxaan ku fasaxi doonaa muuqaalkaasi oo faahfaahsan iyo askari hantidiisa la dhacaya sidee buu dagaalku ugu jiri karaa ama loo xukumi karaa warbixin iyo macluumaad dheeraada ayaan ku hayaa daawada qodobadeena kale caawa haddii alla weyne laga helo waxaa qayb ka noqon doona shabaab wuxuu joojiyay dhaqan lagu yaqiinay goorta la gaaro munaasabadaha ciida iyo maalmahan oo kale sababta ay u joojiyeen cabsida ay qabaan iyo madaxda kooxda oo kala shakiyay ayaan caawa mowduuceena diradda ku saari doonaa qodobadaas oo faahfaahsan qaybteena la yaabkana waxaan ku eegi doonaa haddii alla weyne laga helo dhakhtar ayaa xaday mandheyrta haweeney uu ka umuliyey dabcan ninkan waa dhakhtar dhanka haweenka ama dumarka dhalmadooda qaabilsan wuxuu xaday mandheyrta haweeneydii dhashay kadibna shaqada ayaa laga ceeriyey sawirkan aad arkaysaan ayaana laga soo qaaday dhakhtarkaasi wadanka uu ku nool yahay isbitaalka uu ka howlgalay iyo sababta keentaba faahfaahinteeda oo buuxda ayaan ku hayaa laakiin waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalkan like saarto like-tu waxay qayb ka qaadanaysaa in muuqaaladeena ay meel fog gaaraan subscribe-na aadna tidhaahdo oo aad mahadsan tahay mar kale ciid wanaagsan waagaag aynu ku bilaawna ee magaalada Muqdisho waxaa la leeyahay waxaa ciqaab adag la marsiinaya askarta furimaha dagaal ka soo baxa ee iyagu u babacdhigi waaya dagaalka ka dhanka ah kooxda shabaab taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed sareegaas Mahad Cabdiraxmaan Aadan oo loo yaqaan taliye shub ayaa ku dhawaaqay in tallaabo adag laga qaadi doono askari kasta oo furimaha dagaal ka soo baxa kana carar waxa uu yeeray argagixisada wuxuu si cad u sheegay in aan la aqbali doonin in askartu dib u gurato xilliga la joogo jiidaha dagaalka isagoo oo xusay in ciqaab adag ay ka dhalanayso ama ay sugayso ciidii amarkiisa jibisa taliya Mahad ayaa waxa uu xusay in sharciga ciidanka uu si cad u qeexayo askariga ka baxa safka dagaalka in uu wajaho ciqaab adag taas oo noqon karta xabsi ama dil toogasho ah sida uu leeyahay sarkaalkan wax ka badan 50 sano ku jira ciidamada qaybahooda kala duwan isla markaana darajooyinka sarsare gaaray oo haddaba sareeya gaasa wuxuu intaas ku darayaa in waalidka askarigaas lala xisaabtami doono lagana jari doono wixii taageero dhaqaale ee dawladdu ay siin jirtay isaga iyo qoyskiisaba dabcan waa mushaaraadkii iyo xuquuqdii uu heli jiray dhanka kale sarkaalkan wuxuu cadeeyay in askarta si geesinimo leh ay uga qayb qaadato dagaalka ee aan dhabarka jeedin ee u babacdhiga cadawga la abaalmarin doono wuxuuna ballan qaaday in geesigii dhabarka ka joogto kooxda al-shabaab uu heli doono bilad sharafeed iyo gunooyin dhaqaale si loo dhiirigeliyo dagaalka lagu ciribtirayo kooxaha argagixiso sida sarkaalkan uu xaqiijiyay taliyaha ciidanka asluubta ayaa ugu dambeyn waxa uu sheegay in ama ugu baaqay ciidanka dhammaantood inay xoojiyaan dagaalka dhanka al-shabaab si loo xaqiijiyo nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya daawada sidee u aragtay askarigii dagaalka ka baxa
in dil toogasho ama xabsi dheer loo diro. aragtidaada qodobkaas qaybta hoose noogu reeb. isla askarta sidaa la leeyahay haddii aad dagaalka ka soo baxdaan waa ladin dilayaa, raashinkoodii iyaga loogu talagalay ayay saraakiil leexsanayaan. muuqaalkan aad arkaysaan waa bartamaha magaalada Muqdisho. gawaarigan ama gaariganba waa kan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wuxuu wadaa raashin, laakiin mootooyin ayaa afarta jiha laga dhigay oo lagu daabulaya raashin saaraa oo lala degaya. muuqaalkan oo cadeyntiisa wata ayaan ku fasaxayaa, laakiin waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalka like saarto si meel fog uu u gaaro, subscribe-na aadna tiraahdo. Bota فراد وايد. عادش. عقام. مش استعال وهذا شو كذي شو. والله يوبيه وطلع يده وايد. حد هو أحمد إذا تتقين. صابرين هنا شو تيجي. باور كوب فاروق على يدي والله.